Ingiliishka asagana shadah ayuu leeyahay waa shibane laba jibaaran. Tusaale, run, markii lagu darayo dabagelayaasha waa inaa laba jibaartaa shibanaha ugu dambeeyo wuxuuna noqonayaa running. ujeeddada laga leeyahay in la laba jibaaro ayaa ka mid ah in haddii hal shaqale ay ku xigsadaan shibane laba jibaaran in uu shaqalkaas yahay shaqal gaab. Marka si shaqal gaabkas ka horeeya aan isku beddelin dhawaqiisa iyo micnihiisa ayaa loo laba jibaaraa shibanaha u dambeeyo. Waxayna laba jibarmaan markii erayo kale oo shaqale u horeeya gadaal ama horay oogu darsamaan. Si shaqal gaabka loo ilaaliyo, waxaa la laba jibaarin xarfahan. Xarfahan uguma dambeeyaan eray shaqal gaab ah aan ka ahayn xarafka X, oo markii lagu dhejinayo eray kale aan la laba jibaarin. Haddaa ku aragtid qaybta dambe ee ereyga xarfaha W iyo Y, labadan shaqal ayay matalaan markay ereyga ugu dambeeyaan. Waa sababta dhinac ay uga guduudan yihiin. Qaybta labaad, ereyada laba jibaarmo markii lagu dhejiyo erey kale. Waxaa ku arkaysaa shibanaha laba jibaaran isku xiga oo ereyga kaga jiro qaybta hore dhexda ama gadaal. Shibanaha laba jibaaran waa laba qayb. Qaybta koowaad,